الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد waxaynu maraynay gabagabadii bishii Ramadaan iyo axkaamtii ama fiqigeenu qaadanaynay qaybta ugu dambaysa waxa weeyaan axkaamul ciidayn labada ciidood ciidul fidr iyo ciidul carafa iyo fiqiga ay leeyihiin ama axkaamtooda qodobo la xidhiidha qodobka u horeeya waxa weeyaan xikmadda looga jeedo mashruuciyadooda ama jidaynta la jideeyay iyo xikmadda ku jirta xikmaddu waxa weeyaan waa farxad aynu ku faraxsanay faralkaynu soo gudanay oo marna ah bishii Ramadaan iyo soomkeedii marna ah xajkii aynu soo dhamaystirnay laba rukni oo arkaantii islaamka ka mid ah farxad aynu ku farxaynaynu la ciidaynaa nabiguna sallallahu alayhi wasallam waxa uu tilmaamay qolo waliba inay leedahay maalin ay farxaan هذا عيدنا أهل الإسلام هدينا ضدك مسلمين توا مالمه فرحي نبي نبينا صلى الله عليه وسلم مدينة وحيمية قال لبا معلومات عيدة لبا دي معلومات وكبد لو حول لبا كلا كفي عن أيها لهاي دين كذا لبدا عيدو ده مركا عياد الجاهلية عيدها مضى إسلام كواني لهاي وإن الله راعين عيد كلنا الله الصمينين laakiin tan uu la hirgeliyo oo la farxo marka loo yimaado qodobka labaad ah xukunkeeda muxuu yahay xukunkeedu ma sunna ma waajiba maxay noqonaysaa qayb kamid ah culimada waxa ay ku doodaan inay tahay waajib iyagoo daliiladan soo qaadanaya ilaahay baa wuxuu yiri fasalli li rabbika wanhar ilaahaga u tuko ciiday ku fasireen ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم عيدا كفسرين مركله النبي قال وجوجتيي oo kamu tagi jirin arinta afraadna waxa way amar wuxuu ku bixiyay dumarku inay soo baxaan iyagoo guriyahaba ku tukan jiray waa min acdam ash-sha'air calaamooyinka waaweyn bay ka mid tahay islaamka iyo awoodiisa muujinaya iyo inay noqotay mararka qaar kood musqitatun liljum'a jumcadiiba mid meesha ka saaraysa oo qofku hadii uu tukado ciida way kaga filan tahay jumcadii ila arimaha lixda bay ku doodeen inay waajib tahay qoliyaha qaar koodna waa waajib kifaaya bay dhaadeen oo umadu ay ku dambaabaysa haday qaar kood tukan waayaan qayb kamid ah culimada waxay u badayeen inay sunno tahay sida maalikiyada iyo shaafiiciyada sunna aad u adag ku daa oo aan laga tagi karayn macnaha aan la fudaydsan karayn waxana u daliila nabiga sallallahu alayhi wasallam nin reer miyaa u yimido wuxuu ri salaad maxaa la igu leeyahay wuxuu nabigu shanta salaadood wax kale miyaa la igu leeyahay salaada waajiba maya buu ilaa inaad sunna tukato mooyaan uu cadeeyay xadiisku salaad farala haday jiri lahayd oo kale isaga u sheegi lahaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam waqtiga salaadan Abdullah ibn Busri waa ka waramaya waxa uu leeyahay waqtiga duxada la tukadaan tukan jirnay xadiidka saxiixa waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam marka way yara kala dambeynayaan ciidan ciidul adha ayaa yara horeynaysa todobada iyo barka xageena marka loo eego inagoo ku naala adduunyada dhexdhexaadkeeda meel walba todobada isma waafaqsaneen tan kalena way ka yara dambeynaysaa ilaa 8 si loo soo quraacdo taasina waa xagga waqtigeeda waxa dhici karta dadka inay dhaafto ciidani sidii dhacday waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam shalay bishii la arkay baa loo sheegay aroortaynu qalaynayna ciidii marka hadii saaka la tukan waayo oo waqtigeedu ahaa si uu loo seego berita subaxa la tukanaya oo iyadoo sunna ah baa la soo qalaynaya meesha lagu tukanayo ciidan waxa uu u bixi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam barbanaan oo umadu ay isugu imanayso oo kolka la isku arko umada islaamka dacawaadkooduna lagu ay halka ku wada ducaystaan raxmadda ilaahayna ay ku soo degto xoogoodana ay ku muujiyaan
marka laga yaabo inay meelaha qaarkood dhowr milyan oo qof isugu yimaadaan aragga iyo madharkaas ama mashadkaas wax cajiiba weeye oo cadowga iyo shaydaankaba cabsi gelinaya haddii suuroobi weyda in barnaan la isku helana ilaa tan baloodhadiiba la wada cunay oo laguma talagelinba musallayatul ciid waxay magaaladu hadday 5 waaxood meel waliba inay hesho meel qaadaysa 1 milyan oo qof oo ay ku tukan karaan ciid oo loogu talagalo danaha guuda marka sadantii guud la caseeyo ayaan daradaas dhacaysa marka masaajidada waa la iskaga tukan karaa laakiin barta banaan baa fadli badan ciidu marka subaxa ciidda la gaaro waxa uu horeeya la qabanaya waxa weeye sakaat fidriga in la bixiyo waa faral isagu faradka inaan la fudaysan la ilaawin waqtigiisa la dhigo kaasa u horeeya ciidii marka aad siinaysa inaad diyaar ku ahaatay ku tahay raashinkuna diyaar ku yahay inta markaad halka iska dhigto ama ciidii aad u wakiilanaysa ay fuliso waxa jira aadaab lil ciid xagga diyaar garowga aadaab bay leedahay ciidu ciidii ay u sahlanaato way waa arimahani waa sunna faral ma waxa kawka in la maydho rag iyo dumarba nadaafadu aad bay muhiim u tahay qofka muslimka ah waa qof nadiif قالكنا إلهي وحول إنما المشركون نجس قفك مؤمن كائنا سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أي نبي يقول لي من نجاس وابو سخ مفضى يتصدى ميل والله لا يسقوا إيمان يابا ولا يسدقونين يا ولا ميران يا عبد الله بن عمر كان يغتسل قبل الخروج وما ينشر إنت آنو بحين تجمل بام أيام مهمة ولبس أحسن ثياب من لا يسقرحيو دركوا نكسرنا لحدو dumarku xijaabkooda iska xidhanayaan laakiin waa ragga ibn Abbas Allah ka raali noqday waxa uu leeyahay nabigu waxa uu xidhan jiray macawis xamra ana xamuuradaysan casaan ku yara jiro dhalaal badan oo fiican xadiid saxiixa Umar ibn Khattabna dhar wanaagsan buu arkay oo nabiga wuxuu lahaa dhar kan iibso aad isugu qurxisid wufuuda iyo ciidaha nabiguna mu oranay ciida la isuma qurxiyo marka uu sugay qowlkiisa iyo ficilkiisa labadaba ama aan ilaahnay ficilkiisa way ku sugantay iyo taqriirka Umarna uu ku daayay markii uu isku qurxi ciidan iyada aadaabteeda waxa kamid ah aan ilaahnay diyaar garowgeeda hadii ay tahay ciidan imika aynu ku jirno ciidul fidri oo kale inuu qofku sii dhadhamiyo wax rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam sida dhaqankiisu ahaa xabada timiraabu sii cuni jiray macnaha caadadii soomka la bedelaya si aan ciid la sooma kaaga noqon waa inaad wax sii cuntaa oo aad wixii aad kari karayso wax badan bay uu noqon inaad sii afurto ciida ciidul adha yadana hadhow baa la quraacan doonaa oo beerkii lagu quraacanaya xoolihii la qalee waa in la sii soomanaado oo aan la quraacanin ilaa inta la soo tukanayo waxa afraad oo kamida waxyaabaha aynu qabanayna at-takbiir inaynu takbiirta akhrino intii nabiga ka soo aroortay waana la kordhin karaa bay culimadu badan yihiin waa dhikri ilaahay baana inafara wuxuu wari tukmilu al-iddata wa litukabbiru allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun waxaan doonayaa buu lahayd inaad tirada dhamaystirtaan bisha 29 ama 30 kolba kay noqotaba takbiirtana akhridaan sidaa uu ilaahay idin baray ama uu idinku hanuuniyay waa waxyaabaha muhiimsan bay kamid waa takbiir habeenkii la bilaabayo kuna jooga ciidda ilaa inta la tukanayo waxa ka dheer markaa takbiirta iyadu عيد الأضحى استين أرجني ومالك عرفي كسب بلا مساء إلى أيام التشريق شنع شيء سعونيس أيامها ما لها قار كود ندعو لبضوح الشجانة يوم كعيد كبل عاب ميسو لكن يدوي كوقت دارته أفرع عشو شنع شيء انت أسيس سعونيس تاني لو هبين كأي صبح عيد انت لتكنيو هاد بيونا سنتي تدكو سي جماعي يوم بيولي ما دانو وضرها قف ولي بقار كيسو استقا وضنايا أصل كوحها إن قار لو وطو قف ولي بقار كيسو أخريو
si aanu gaafilu noqoninoo shaydaankii la soo daaya aanu u jeedhin waxyaabaha sunnaha waxaa ka mid a dumarku inay soo baxaan iyo caruurta iyo kuwii guryaha iska joogayay xasba alistitaaca intii la kari karo xadiid saxiixa waxay leedahay saxaabiyaddii umu cadiya ee reer ansaareyd nebigu wuxuuna faray sala allahu calayhi wasalam inaanu dumarka haddaanu nahay ciidda u baxno kuwa guryaha ku jirana saarno ee hablaha iskaba asturnaa sidoo kale kuwa aan daahirka ahayna aanu kaxayno iyagoon salaada tukanayni yashhadna alkhayra wa dacwata almuslimiin dee gabadhii mar haddii caado leeda salaad tukan mayso daahir ma ahe waxay laakiin goobjoog u noqonaysaa khayrkaa dadka muslimiinta ah iyo ducadooda oo meesha naxariis baa ku soo degaysa iyo xoreyn ilaahay uu ka xoreynayo naarihiisa uu ka xoreynayo dadka halkaa isugu yimi bicayni raxma ayuu ku eegayaa aniga ayaa nebiga la hadlay bay tiri diidkii saxiixulbukhaari ku sugnaa marka waxaan idhi dee qaarkaya ma haystaan dharkii ay xidhan lahaayeen hadday innaga dee maanta shandado dhara dadka qaarkood iska haystaan saxaabiyaddani waxay leedahay hablihii bixi lahaa qaar baan haysanba jilbaabkay ku bixi lahayd maxaanu yeelnaabay ti ixdaana laa yakuunu lahaa jilbaab yaa rasuula allah rasuul allah mid annaga naga midi jilbaab ma haysato jilbaabkaa dabadda loogu baxa waa maradan weyn min alqarni ila alqadam tin iyo cidhib qofka qarisa ayaa jilbaab la idhaa marka rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxau uhi litulbisha ukhtuha dee walaasheeda muslimadda ah ha haweyso waxaa loo fahmi karaa hala gasha iyo ha siiso hala gasha socon mayso oo hoosta ha gelisa ileen gabadh hoosta kama gelaysee waxa weeyaanun ha ammaanaysiiso ilan qaar baa laba haystee midda markaa mid dheeraad haysa heblaayoy toobalcaarahan qaado bal adiguna bannaanka ugu baxa marka jilbaabkaasi wuxuu sheegayaa saxaabiyaddu ay noo tilmaantay in arinta looga baahan yahay asturnaan baa loo baahan yahay hooyooyinka iyo hablaha cawradooda waa inay asturaan quruxdooda waa inay qariyaan kol hadday bannaan u baxayaan udgoonkooda waa inay joojiyaan meeshii waxaa la doonayaa in camal cibaado ah lagu bannaan baxo oo aan macsiyo bannaanka loola bixin markastood macsiyo ku jirto cibaadadaadii baa xumaanaysa oo ajrigeedii uu yaraanaya sidaa daraaddeed udgoonka way iska daynayaan iyo unsiga lagu saliday dumarkeenna markay bannaanka u baxayaan iyo dahabka faraha badan ee dhalaalaya isku guraan iyo dharka bilicda leh walalacda haya waad ka daynaysaa kaasi waa kii guriga kii fagaaraya bannaanka maaha saxaabiyaddaasi waxay tilmaantay jilbaab bay tilmaantay nebi maxamed baanay hortaagayn isagaa odhan lahaa jilbaabka ha iska dayso dee kuwa wanaagsan oo dhalaalaya ha soo qaadato ayuu odhan lahaa kii unbuu taqriiriyey ay sheegtay jilbaab haddii aanay haysan gabadh kale jilbaab ha siiso marka asturnaanta bannaanka loola baxa arrinta aad baynu u baraarujinaynaa quruxda qalad baynu ka fahmnay innagu inahaasina waxa weeyaan xagga maatida iyo dumarka aadaabta waxaa ka mida mukhaalafatu dariiq qofku waddadu sii socdo kasii tegaya iyo tuu ka soo noqonayo waa inu kala bedelo sidaasaanu ahaa nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa isaga ah saxiixulbukhaari khaalafa ariiq waddaduu kolkii hore ka tegay buu mid aan ahayn ka soo laaban jiray ilaahay baa wuxu uhi wanaktubu maa qadamuu wa aahaarahum dadku waxay horumarsadeenna waa qoraynaa raadkoodana waa qoraynaa yowmaidin tuxadiثu akhbaaraha biana rabbaka awxaa laha dhulkan maalintaa wixii adduunka lagu dul sameeyey buu qiyaamaha warkiisii buu sheegayaa ilaahay baana u waxyoodo ku buuxiyey meel waloo dhulka aada martay ama aada wax ku fulisayba waxeedii bay maalinta qiyaamaha waxaasu igu sameeyey halkaas waslad waloo dhulkiiba markhaati bay noqonaysa bani salima diyaarakum tugtab aahaarukum qoladii reer bani salime masaajidka doona inay kusoo dhawaadaan nebigu wuxu uhi halkaa fog iska deganaadoo u soo lugeeya masaajidka raadkiinana la qoraya marka haddii aada meeshii un ka soo noqoto waxaa laga yaabaa inay cagihii isku dhacaan waa se dariiqa la dheeraynaya waxaa sunno ah in loo socdo halka lagu ciidayo ama qofku uu tegayo oo gaadiid aanu fuulin haddii arrintu ay u sahlan tahayoo aanay meeshu ku fogeyn ama dhibaata aanay jirin xadiid xasana baa sidaa tilmaamaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam ama aan idhaahna cabdillaahi bni cumar wuxuu ahaa meesha uu tegayo
waa u lugayn jiray arrintaasina aad bay muhiim u tahay oo raadkii la qorayay un bay ku jirtaa ama xadiid xasan oo ibnu maajah ku sugan saasaa buu tilmaamaya kaana sala allahu calayhi wasalam yakhruju ila alciidi maashiyan wayarjicu maashiyan nebigu wuxuu tegi jiray ciidda isagoo sii lugaynaya isagoo soo lugaynayana waa ka soo noqon jiray marka dadka qaarkood baa eryada lagu tukanaya u dhowdahay waa iska sii lugayn anaa la iska soo lugayn haddana waxaa laga yaabaa dee baabuurtu markay badato meelaha qaarkood inay lugtuba ka dhib yar tahay oo inaad u lugaysa ay kuu sahlan tahay oo baarkin aad waayeyso hadhowna meeshiiba aad ku xidhmayso marka lugtaasi waanay ka ajri badan tahay waanay ka saxmad yaranta ka saxmad yartaa axkaamteeda waxaa ka mid a ciidda inaanay lahayn salaad sunno ah oo ka horeysa laba ragcadood baa la tukadaa laakiin salaad ka horeyso sunno ah ma laha iyo salaad ka dambaysa waxa uu leeyahay ibnu cabaas ana nabiya sallaa yowma alfidri rakcatayni lam yusalli qablaha walaa bacdaha nebigu sala allahu calayhi wasalam maalintaa ciidda laba ragcadood unbuu tukaday salaad ka horeysayna may jirin salaad ka dambeysayna may jirin taa macnaheedu markaa waxa weeye qofku kolkuu yimaado wuu iska fadhiisan ilaa salaad la tukanaya si taxiyatulmasjidka iyo raatibadii ma laha sidoo kale waxaanay lahayn adaan iyo aqiimid midnaba ma laha loona adaami maayo loona aqiimi maayo ibnu cabaas baa sidaa nabiga ka sheegay sala allahu calayh wasalam lam yakun yu-adan yowma alfidri walaa yowma aladxaa xadiidkii bukhaari labadaa ciidood midna looma adaami jirin waktigii nebiga waa ficil nebiga ka sugbay sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadaba oo ka dambeeya ku dayanayay markaas waxyaabaha muujinaya ka mid tahay bay leeyihin culimadu inay salaad sunnaa tahay ila faralka waa loo adaamayo salaadaas waxay leedahay khudba ayay leedahay ciiddu khudbatulciid cabdillaahi bni cabaas allah ka raali noqdo wuxuu yihi nebiga abubakar cumar cuhmaan intaba waa la tukaday salaada ciidda markaa khudbadda way ka dambeysiin jireen salaada horeyneysa khudbadduna way dambeyneysa sidan jumcada khudbaddu ma horeysa iyada ee wakhtiyadda maa niman madax ahaa reer bani umaya baa kala rogay oo markay arkeen dadkii ay doonayeen inay fariin u dhiibaan inaanay dhegaysanaynin oo laga yaacayo ayaa waxay dhahaan qasab ugu soo qadim asxaabigii diidayna waxay dhahaan turika maa hunaalika asxaabi baa war ka daa waxaan ima jiri jirine adeer waxaad taqaanay waa laga tegeyba in madaxa waxa u daran uun wuxuu doonaya inuu fuliyo intooda badan rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam sidaasuu ogeysiiyo wuxuu uhi innaa nakhdub faman axaba falyajlis khudbad baan akhriyaynaa buuhi anigu aan idiin jeedinayaa qofkii doonaya ha fadhiisto ha dhegaysto kii ka tegayaana ikhtiyaar buu leeyahay taasi waxay sheegaysaa inaanay dhegaysigu fala lahayn waktigeedu waa uu ka dambeyn labada ragcadood laakiin dadki waa ikhtiyaar bay leeyihiin qofkii doonaana wuu tegi karaa kii doonaana wuu sii joogi karaa waa dhegaysan karaa laakiin buuqu meesha ma qabto dadku markaanay macrifo lahayn hawsheeda iska leeyihiin intay soo kacaanba imaamka ku soo ururaya siiba haddii meelaha bannaan oo kale markuu in yaroo carabiya jeedinayo way ku soo ururayaan inay halkooda dadku iska fadhiyaan weeye markuu dhammeeyo ay iska kaakacaan khatiibka laftiisuna inaanu sii dheeraynin dadkiiba hadday sidaa turku joog yihiin fariimaha u muhiimsanu uu u dhiibo culimada qayb ka midi waxay ku tageen inay hal khudbadun ay ahayd oon mimber loo dhigi jirin inuu istaagi jiray qofku istaagaya caguhu isku taagaya hal khudbadna way ahayd qowlkaasina waa ansaxo wax jira wey arrintaas ciidan waa qodobka 11aad axkaamteeda ka mida tahniyad bay leedahay sanad xasana ayay ku sugantahay buu leeyahay xaafid ibnu xajar inay saxaabadu odhan jireen dhexdooda taqabal allahu mina wa minkum allah inaga aqbalo idinka iyo annagaba camalkan iyo cibaadadan allah inaga aqbalo waa hambaliyo waana duco oo hambaliyooyinka islaamku inoo jeediyey hadalun maaha laakiin waa hambaliyo ducaa sida tan oo kale iyo arooska taqabal baaraka allahu laka wabaaraka calayk wajamaca baynakumaa bikhayr waa hambaliyo waana duco marka inahaasibaa ah kuwa u muhiimsan axkaamtan ciidda waxyaabaha aynu ka digaynana waxaa ka mid a macaasida
إن لا إسكيلالي حارانتا نوعية ذا كلا دوان إن الحاران عنتا إسكيلالي إن الحاران كحرقوتنا إسكيلالي ما الحاران لقوها ينها حاضرين در حاران وضنها الله صفرين سيانا العقف مرين إن عمل كهربان سوري سيسي وأنا عيبي على فلان وسكر راعي أريد سياد بي مهم تاي سفر هذا حارانتا دليراد وضبحيا قلبات ويكون بدنيس إلى سفر حاران أبو قلي وعاصم بالسفر وعاصم في السفر سفر كيسنا وعاصم سفر كالحدي سنة عاصم بكويه رجاسا كان يبدل اللي غضاي كان قاري اللي قلب ما ولا يقول يتنزه يد الحيس لكن وين هذا وإحنا نزيه عن الحرام حرام أنكو شدين يب هدلادو بعد أي سمينا يا نشاسك لو سمينا يو رجع يدو مركز إصدح كلا يا اختلاط كلا قف كمسلم كايو قرنا يا وحي ربيو ديده إن ينكوان إسكدرين أو أن لا أقولان إن أدبي مهم تهاي اللي يرفع ربضان بقالت كفهم أيامها والله فرحة يا وحول بولا جو فرحة يا إما كملاوي يا راد قمار با هذا ما يلا سما يا قمارك قال كله فرين شري هذا ويريه لكن واحد سجاب بدن بابورتا يريه ويلشي قبله أنت إسلا راعان أيورنا يان كيمها قيان كائن تجن ويلي قبرد قاري إسلا راعينا توينو قرن كرينا إنه خير كسوة شيدين إنها سين كسوة قبل لهاي سنة كيس خير الله إنه قارسي دم بيجاني يكي والد كان الله ضعف فرحنا ما يسترن كوي كعيدنا الله ينقدقه وحين الله يكبرنا ضدك بكاء عذر هذا كعبنا يا الله كدل قاض عذر هذه ويبتنا مع الصدا وجوا عنا عذر كعاف ما ضدك الله يقول بدله ملك ستيج شوقان بعاف ما الله سي قار بدن بعد وعنا يا عريري كتير الله عفيو الله كدل قاض عيسنا الله سي ولا لهم فلسطين إيه ولا لهم تشاينا أو يجنا رب بدن يمال كستوى مسلم كلا قول ربا يبى النصر يجي إلهها سي عيدو هيلي صام مسلم ويانا إلهها هو هيليو رب كنا الله كدل قاض عذاب قضاء عبسي الله كتورة عريرنا الله جليو والد كنا الله نحرسته إننا الله إنه قد ضبنا حرسته قف كستوى مسلمهم مراد لا ومراد كيسة سخري الله سيو مراد كيسة خير الله سيو ضد بدن با أبتكو أي كحمادين الله وهجاتشيو أنت الشيطان كي يقالكو كحيسين الله كريو أنت وهنوسيهن الله وهجاتشيو عمل كينو رمضان سوس مين إننا الله إنه أقبل إجابة الله إنه سيو بدا إنه كفر إحنا مالين تقيامة سيدا إنه إمك وقفر حينا فرحات الله بعدنا الله ينسيه عذاب كي سنة الله ينقبض بادي جندي سنة الله ينقو عسومه جندي سنة الله ينقو عسومه دعاء إنه ولا له ندر إنه إلهي إنه أقبله جدا إنه كفى إذا إنه كفر إحنا قيامة الله ينقدقه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسبحان ربك عفس بين إلهي كدون إن ضدكم هاي سود عافيات